siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Habargidir iyo Biyamaal ayaa waxa ay ka hadleen heshiis hordhac ah oo lagu kala saxiixday shir ka dhacay magaalada Markacadey ee gobolka Shabeellaha Hoose caasimadda u ah Badweyn.com ayaa xog ay heshay waxay sheegayaan in heshiiskaas uu ahaa mid muddo 4 bil ah xabad joojin la kala saxiixday iyadoona jawi nabadeed laga shaqeeyay dadkuna iswalaalsadaan inta arintaas ay jirto wararku waxay intaas ku darayaan dad ka qayb galay heshiiskaas in ay sheegeen Habargidir xubna ka socday inay u arkeen mid lagu qiyaamay qodobada la soo bandhigay sidaas awgeedna ay shirkaasi qaadaceen beesha Habargidir waxa ay sheegeen in odayaal ka tirsan Biyamaal ay dantooda kaliya ka shaqeeyeen oo waxa danta beesha Habargidir ahaan meesha lagu muujin gudoomiyaha magaalada Marka ugu magacaaban dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cumar ayaa sheegay inay ku baaqayaan in la dhaqan geliyo heshiiska shirka lagu kala saxiixday Marka oo la daayo naqdinta wixii la isku afgartay marar badan waxa la isku dagaalay magaalada Markacadey iyo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo maleeshiyad ka soo kala jeeda Biyamaal iyo Habargidir dhiig badan isaga daadiyeen